بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم داوديال meel walbo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada warkii caalamka anigoo Jamiil Xasan Garuun ayaa u diyaar ah qodobadan wararkeeda ku hayana waxaa kamid ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deeq isugu jirta qalab ciidan iyo waliba dawo waxa ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala degmada Ceelbarde barnaamijyo looga soo horjeeday qaraxyada ka dhaca guud ahaan magaalada Muqdisho gaar ahaan qaraxii dhawaan loo geystay xarunta dalka Turkiga oo ku lahaa magaalada Muqdisho oo dad fara badan oo barnaamijyo ay isugu soo baxeen maanta magaalada Muqdisho madaxa arrimaha siyaasadda ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ka warbixiyay waxqabadkii xisbiga iyo waliba miisaaniyadda sanadkii tagay ayada bisha cas ee Imaaraadka Carabta ayaa maanta magaalada Hargeysa 100 caruur ah oo agoomo iyo danan isugu jira waxa ay u qaybisay dharka ciida gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay mashaariicdii horumarineed oo ay markaasi xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay deegaanada gobolka Togdheer iyo waliba xaaladda guud ee gobolka Togdheer qodobada iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin doorashooyinkii guud ee ka dhacay dalka Zimbabwe iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Zimbabwe oo asigu markaasi doorasho kula laalamay madaxweynaha talada haya ee dalkaasi ayaa maanta sheegay in markaasi doorashooyinkii dhacay ahayeen kuwa markaasi majaajila oo lagu shubtay ay wararka ku maqli doontaan balse qadar yar adeega bulshada warkii faahfaahsan aan ku bilaabay 3 nin oo bistoolada ku hubeysan ayaa lagu soo waramayay in xalay xaafadda howlwadaaga magaalada Beledweyne ay ku dileen afhayeenkii odayaasha golaha dhaqanka ee gobolka Hiiraan marxuum Xuseen Cilmi Ibraahim xilli uu gurigiisa furusi doonanayay odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa cambaareeyay dilkii marxuumka loo geystay sidoo kalena waxay sheegeen in ay dishay gacan ka xaq daran oo ka soo horjeeda ammaanka iyo waliba kala dameynta ka jirta gobolka Hiiraan sida ay sheegeen lama oga ilaa hadda cid ka dambeysay dilka marxuumka oo la sheegay in si weyn looga yaqiinay guud ahaan gobolka Hiiraan isla markaana lagu sheegay xubin firfircoon oo aad uga qayb qaadan jirtay howlaha horumarinta iyo amniga ee ka jira guud ahaan gobolka Hiiraan ciidamada markaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay maanta gaareen degmada Ceelbarde halka ay gaarsiin qalab isugu jira dawo iyo waliba qalab ciidan waxa ka qayb qaatay isla markaana asaguna goobta gaaray wariyahayaga ka tirsan TV-ga caalamiga Universal Axmed Nuur Cali Maxamed warbixintan ayuuna ka soo diray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool oo ku taala meel ku dhow xuduudka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa ka howlgala boqolaal askari oo ka tirsan militariga dawladda Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay xubno kamid ah baarlamaanka halkaasi maanta ay geeyeen qalab isugu jira dawo iyo saanad militari oo loogu talagalay inay isticmaalaan ciidanka dawladda ee ku sugan halkaasi xubnahan baarlamaanka waxa hogaaminayay xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Sanasoor waxaana barqanimadii maanta diyaarad gaar ah ay ka qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyagoo doornimadii maanta ka dagay magaalada Ceelbarde ee gobolka Bakool halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan halkaasi xildhibaanadan ayaa intaasi kadib waxa ay tageen saldhigyada ciidamada militariga ay ku leeyihiin gudaha iyo daafaha magaalada Ceelbarde halkaasi oo ay kormeer ugu tageen iyagoona kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale madaxda maamulka gobolka Bakool oo ay weydiinayeen sida ay tahay iminka xaaladda ciidamada ku sugan deegaanadaasi boqol mahad naga hoob ilaaheer sidii oo garab surinyin ciidamada walaalada iyo saaxiibada iyo يعني أن لجرب سرنجين سدي أن وضع الدفاع الله هاين عدوك يوردن بأن وضع سمن أو أنك هذا الصومالي شليدي أن فضوها إني سميل أن جذبه سدي أنك وضع سرنجين دفاع جو يونا يعني سدي أنك بد بدي فين بدك يونا دالكبه وليل أوجادي إن إذن أنك جيسيسن أنك وضعنيسن إلى بقول كيلومتر لوايو الشباب كده بقلاو مدهوينا في أي وليني أره ولي أرجعني ضد الشباب أنت هويرنا أسكو ريبان على أرججري لكن الشباب ويدي سدوا قبل كبقول الروجانية قارهان دقمة ألبرت مرلمات مرسد حد من أفراد مهن نغيش شعبك فير ألبرت ومهن نغيش شعبك فير ألبرت يعني كارنتي مقل هايتي يوكو قاضين سو دوينتي دتكي هاكو بركعي قبل كبقول دقمة حضر gudoomiyaha gobolka Bakool ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Tool ayaa dhankiisa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay in ay tahay markii ugu horeysay dawladda Soomaaliya
ay saanad militari soo gaarsiisay ciidamada ku sugan gobolka Bakool. taasna may farmiino deersiyaasana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka in howla yahay inuu furfuro ciidankii alxamdulillah geek may balahan bedeli la sarkaale la bedeli hobnu been sheegan iyo hobnu fan sheegan isu baarga tii kala oo ay tooy dhaqaalihii shacabka kuma qnaay way ee badalto kuma qn iyo waliyo kuma qnaay ma nin baahna inaysan qayladaan jiitan tanto tan kala ma in baahna ciidanka oo noo roog bay dhow inaan hanin dar technically baaburta ciidanka lahay wala ka qobadaan lahayna bay dhow garaashas ku yaalan in baaburtiyo ay tan hanin theater nahni biiri soo ku faa'iideysan maadaama bay dhow hawlaatan kaayna garaashas ku yaalan theater baahin Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Muqdisho. banaanbaxyo looga soo horjeeday qaraxyada ka dhaca guud ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan kii dhawaan ka dhacay xaruntii Turkigu oo ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dad badan waxay isugu soo baxeen fagaaro weyn oo ku yaala magaalada Muqdisho. Maxamed Maxamuud Timacada ayaa warkan faahfaahinaya. dibadbaxan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir isla markaana looga soo horjeeday qaraxii dhawaan magaalada Muqdisho lagu eegtay xarun dawladda Turkiga ay ku leedahay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona dibadbaxayaashu sidoo kale ay ku dhawaaqayeen in guud ahaan magaalada Muqdisho aanu raali looga ahayn in qaraxyo ay ka dhacaan dibadbaxa oo suugaan kala duwan isla markaana u badneyd suugaan dhinaca wadaniga ah lagu soo bandhigay sidoo kalena lagu guubaabinayay shacabka ku nool magaalada Muqdisho inay kaga hortagaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale laga qaaday dibadbax halka uu ka dhacayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo dhankooda khudbado kala duwan halkaas ka jeediyeen waxa ay sheegeen in aanu ogolaan doonin qaraxyo in lala beegto xarumaha dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho iyadoo dadka dibadbaxa ka qayb galayeen sidoo kale ay wateen calamada Soomaaliya iyo kan Turkiga gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir Deeqa Cabduqaadir oo halkaasi ugu horeyn ka hadashay isla markaana ku hadlaysay codka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan qaraxyada lala beegsanayo goobaha ay dawladda Turkiga ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir salaanka dib barnaamijka maanta gobolka Banaadir oo meesha iskugu yimid waxay tahay banaanbaxan qaraxii ka dhacay in safaaradda Turkiga gurmadka wareey maadaama ay noo sameeyeen qaraxi dhacay aad aan uga xunnahay loomana joojinayo sababtoo ah qof walba waqtigiisa iyo saacadiisa u dhintaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo khudbad dheer halkaasi ka jeediyay ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho waxa uu ka codsaday inay ka hortagaan qaraxyada lana dagaalamaan kooxaha inta badan wax qarxiya war ma aragteen dad idiin soo gurmadeen magaaladiinii nadiifinaya aan Turkiga ahayn war ma aragteen dad isbitaallo idiin dhisay 22 sano oo Turkiga ahayn ma aragteen dad caruurtiina quudiya waxbarasho 4000 oo arday waxbarasho siiya aan Turkiga ahayn war ma aragteen 4 iskuul oo waaweyn wax dhisa 22 sano aan Turkiga ahayn sababta Turkiga loo qarxiyay waa maxay marka arrintaasi ma aha shabaab oo kaliya arrintaasi waa colaad ay ku mataanoobeen shabaab iyo siyaasad ay ku mataanoobeen wey ha ogaadaan waxa lagu mataanoobay shabaab iyo siyaasadda waxa isu keenay ee mataaneeyay waxa weeye maxay Muqdisho u dhismaysaa wey dibadbaxan looga soo horjeeday dhawaan qaraxyadii magaalada Muqdisho lagu leeyahay xarun dawladda Turkiga ay ku leedahay ayaa maanta waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo guud ahaan shacabkan ay ku dibadbaxeen in aanu ogolaan doonin qaraxyo lala beegto xarumaha dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho Maxamed Maxamuud Timacada Universal TV Muqdisho madaxa arrimaha siyaasadda ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa ka warbixiyay waxqabadkii xisbiga iyo waliba miisaanadii sanadkii tagay ayaan Abiib Aadan ayaa waraysigan u qaaday Universal TV
warbixintan oo ku saabsan waxqabadkii 2005 ee tirsiga taariikhda Itoobiya ee xisbigu ka qabtay howlaha horumarka nabadgelyada waxbarashada caafimaadka beeraha biyaha iyo maamulka suuban ayaa waxa warbixin naga siiyay madaxa arrimaha siyaasadda ee xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Saleebaan Axmed Xasan oo warbaahinta ugu waramayay xafiiskiisa oo sheegay waxqabadkii 2005 ee tirsiga taariikhda Itoobiya waxyaalihii uu qabsoomay xisbiga xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya qorshaystay howlo fara badan qorshooyinkan ay ka badahayeen howlaha xisbiga horumarka iyo maamulka suuban iyo nabadgelyada qorshihii 2005 ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya sana miisaaniyadka tagay 2005 qaybtiisa diyaar garowga bow ayaan culays saarnay mudnaanta koowaadna la siiyay waayo waxaa jirta horaantii in hogaaminta sare dhammaan hogaaminta heerarkeeda kala duwan laga dooday qorshihii 2005 isla markaana fikir midaysan laga qaatay sanadka 2003 2004 2005 waxaa la suurtageliyay inay degaan bulsho xoolo dhaqato ah oo loo bedelay xoolo dhaqato beeraley in ka badan 150,000 madax qoys in ka badan in maanta ay ka faa'iideysanayaan barnaamijka dibadjinta kuwa noloshooda si dhab ah isbedeshay isla markaana qaar kamid ay yihiin hormuudkii xubnaha xisbiga guulaha ayagana waxay ahayn maartay guuli waxaabino suurtagalay sidoo kale qorshahanaga xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya bulshadeena xoolo dhaqatada xoolaha iyo dadka inay helaan biyo ku filan ba qorshe ahaan loo qaatay isla markaana in ka badan waxa la qoday 700 oo barkadood guud ahaan laga bilaabo rubuci labaadna muddo 6 bilood gudood baa lagu gabagabeeyay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo isagu guulo la taaban karo ka soo hooyay howlaha horumarka nabadgelyada maamulka suuban waxbarashada caafimaadka beeraha iyo biyaha hadaba xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal ugu jira kamid dhalinta qorshayaasha isbedelka kobaca dhaqaalaha iyo diyaar garowga xuska 29 Hidhaar oo ah maalinta qoymiyadaha shucuubta dalka Itoobiya oo lagu qaban doono caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada ayaana bibaadan TV-ga caalamiga Universal Jigjiga warkii caalamka oo xilligan la socodsiinay ugu jimila garuna inta ayaan ku soo afmeeraya tan iyo kulantadeena dambe waxa idin ku duwayaa qaybaha kale ee TV